السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وأنا سلامني أدون كمال كسر جوتان بقى ومركلا يا نجي وكسر الله بني بيج كني فرحية فلوج سود ولا أصحابي أنا شرفت مدن هاي فرحية سود ولا أصحابي ملك استعدون كده على ديسك جوتين وأنا جو فرحية كيف يعني هو محمد على سيدي أوكي وحاول channel كان جدا ونسي نواه وإذا channel كي أنا قلت قانين فرحية فلوج سبسكرايب يا لايك يا شير تاعنا يلا بقي لنا وما حسنتين وايد سلامنا مرة لايك مصدح هذه مرة توانات مرة كمان ولي بقى وأنا نجعلنا هاي سود وهذا عاو برامج ساس ومصيبة لكن برامج أصلية وحبالك فايدي كلا دتكنا أنت بحلو يلا جو لو بدي هاي عرفنا إن كشة كينو تلوين كبحنا أديكوا تلوين كينو كده ستان أما إذا كفاينا أما نكفايدان سودوا أصحاب شرفت من برامج كانوا شاكريا مثلا منتهين هي سودا فرحي محاول معاو حاواي أصحابي برنامج كينا دانست محاول تقانا عاو برنامج كينا وحكوس ليسين هاي أما كوس أما سلك كوهايا لبا waxyaalood farqiga u dhaxeeyo danayste iyo qofka dantiisa raacdo waxa ay kala yihiin iyo sidii u kala muhiimsan yihiin ayaan rabnaa inaan ka sheekeyno caawa danayste iyo qofka danti raace labadaas ayuu mawduuca labadaas xabo farqiga u dhaxeeyo iyo sidii u kala fiican yihiin ayaan rabnaa inaan ka sheekeyno iyo maxay yihiin intaba هاي فرح البرنامج قال ما نوقف فاهنا مسامح بالله أنا وحاول بنتي أشوف كل شيء ما هي أدينا هنا جست الخقاتوا وقاضنا إن شاء الله يا هاي هذيك الدكتور ماشي كل شيء خاركوا وكسوها بارد وانا سودوا أصحابتي هنا لا برنامج موضوع عصيدي شجنا وهلا هنا دنيستي يدنتي راعي محي كليهين سيسو كلا في عينهين وهذا دوما سيد أكتهين مركز تبع أدونك هدي للجوجو وحاب في عن المركز تغير لك شقيه هناك لك شقيه لا يستغيره محل هاي تغير لسكم موجيه كالقعال لسكم موجيه كي حاول اللي تكر له سوق هذا كي كرجله وكو هوسه وسني لاوين ومركز تبع او نيك لا كتحدثوا عن مقر سوق هذا ان لا يستغيره لا يسكعشرو لا يتولاصو لسقرب صلاه سيده دينتنا اي قبطو وإنه أوابينيسو بلادنimada ay ku jirto balaadnimada ay ku jirto dhaqankii hore ee Soomaaliyeed ama dhaqanka hadda jira oo wanaagsan uu ku jiro oo Soomaalida aad bay isku taageeri jireen markasta oo taageerada waxa ilaa hadda waxa lagu nool yahay Soomaalida burburkii iyo dhibaatadii wixii soo maray hadda waxa lagu nool yahay waxa taageerada istaageeraan inta kuleenta marka asxaabteena marka waxa rabnaa iyadoo taasi jirto inaan u soo daadego barnaamijka danayste iyo danti raacde waa laba eray oo aniga fahamkayga midna uu yahay mid aan fiicnayn midna uu yahay mid fiican oo qofkii sameeyahay adduunka oo horumar iyo barwaaqo ku gaarayo marka aan soo qaato marka aan fasiro labada eray eriga la yiraahdo danayste maxaa u taqaanaa danaysto waxa uu qaanaa qof dantiisa ma ogiye yani dadka ku danaysanaayo oo markuu dantiisa gaarin asxaan lahayn abaal lahayn thanks qabil sabaha alla ilaaha danayste waa qof wuxuu u dhow yahay eriga xaasid jazaar amal waa jazaar ama eriga waxa waaye xaasid ayuu ku dhow yahay ma gaarin laakiin wuu ku dhow yahay waxa qof jecel markasta inuu kaliis wax qabsado dantiisa le in laga shaqeeyo markasta asaga inuu ninka le hor wixii horumarkiisa hadii dan la qabaatiisa la qabto wax kastaba hor dadku in dantiisa la qabtaan asaga ninka le kaliis wax loo qabto asaga le hawshiisa la fuliyo wuxuu jecel yahay markasta in asaga dantiisa laga shaqeeyo bas wuxuu jecel yahay waxa dhibayo dadka kale horumarkooda ama inuu iyaga la shaqeeyo horumar inay gaaraan wanaagooda waxaasoo dhan ayaa dhibaya inuu ninka asxaan iyo khayraad sameeyo oo dadka kale oo adliista xataa oo gacan u fidiyo xataa ma samaynayo wuxuu rabaa kaliya in dantiisa laga shaqeeyo asxaabta ay dadka ay saaxiibada yihiin ama qaraabada yihiin ama walaalaha yihiin
markastaba wuxuu jecel yahay inay asaga tiisa ka shaqeeyaan markuu arko intoodii marka ay maalintiisi marayso maalintii tooda laga shaqeeyaa uu ka taa uu ka waxa sameeyaa waxa la yiraahdo quit oo sameeyaa waba dhumanaaba qofkiiba wala weynaaba markii la yiraahdo dad qof kale hawshiisa la qabana barkintooba jifaaba xariifkan loo soo kacayo war maxaa dhacay maalintii tiisi ay soo gasho la yiraahdo tiisa hala qabtana qof kasta wuxuu rabo inuu kabkiciyo oo yiraahdo tayda hala qabto hawshiisa laga shaqeeyo meel kale la aadin waa qofka danaystaha ah ee ay dhibayso qof kala dantiisa inuu la qabto ama la shaqeeyo horumarka dadkana nacib oo ku farxin adeena qol lahayd inuu la garab istaago dadka ha alla ilaahay qofka noocaas oo kala oo danaystaha ah oo in kaligiis wax la qabto jecel inta badan horumar ma gaaro sababtu waxay tahay qalbiga ayuu xaasid ka yahay horumar ma gaaro mana ninka la yiraahdo waxa la wuxuu isku xiran kala jabayaan kala burburayaan libinta dadkana waxaa fiican qof u ogolaado ama qof kale walaalkiisa markuu horumarkiisa jeclaado asaguna horumar gaaraya marka waxa waaye xadiiskii rasuulka calaihis salaam ee ahay waxa aad jeceshahay oo naftaada aad la jeceshahay walaalkaada muslimkaana la jeclow taas ayaa muhiim ah haddaan taas ka gudubtid marka god ayaa ku dhacaysaa waxaad jeceshahay naftaada aad la jeceshahay hadday hanti tahay hadday maal adduunyo tahay hadday magac tahay hadday mansab tahay hadday sharaf tahay hadday madaxnimada hadday wax kasta tahay intaba sida adigu u jeceshahay inaad heshid walaalkaan u jeclaaw inuu asaguna oo horumarkaasi waxaas u gaaro marka taas waa iska wayga waano marka ereyga danayste waa noocaas qofka danaystaha kulay dad badan oo danaystayaal way jiraan way maqlayaan danaysnimada kaligiina jeceshiin iska bedela isku aragtay qof horumarkiis ila ka soo horjeedin hada qof horumarkiis qof ku soo horjeeda xaasid waa xaasid laakiin danaysta waxa waay qofka markay danka soo gasho waa daba orday marka dantaada ka gaartid xataa jidka adu kaaga hormaad hay ma dheeysid isla markii waa dantaada hesid jazakallahu khayr ma dheeysid thank you madays hore uga sii soconaysa waaba ilaahay qofkan wuxuu ku qabtay danaysta exactly taas marka dadka kale dantooda inaad la qabataan ama aad taageertaan oo la shaqeeyo maalintaada ugu soo baadan garab aad siisid yes maalintooda inaad ka tiirisid maalinkaada adiga laga tiiriyo taas ayaa muhiim ah asxaabteena ereyga kale aan usoo daadegayna wuxuu yahay danti yaqaan qofka danti yaqaanka ah waa qofka adduunka iyo aakhiraba horumar ku gaaro waay oo danta kala aqoonna ma yahay danta kala kama hadlo qofka dan yaqaanka oo fasir doona wuxuu yahay danti raacde danaysta uu ka duwan yahay in isku qaldamaa ereyga marka danti raacde qofkaasi waa qofka adduunya aakhiraba ku guuleysto marka haddii fasiraad yar aan ka bixiyo ereyga danti raacde waa qofka yaqaano dantiisa oo maala yacni bagamudo sheeko iyo cawljileec iyo raxraxaysi aysan hawshiisa uga tegin oo mar kastaba dantiisa iyo mustaqbalkiisa iyo wixiisa ka fakaro ay meel u saaran tahay oo yaqaano waxa ay ninka la yiraahdo nolosha ku salaysan tahay oo balaan kale waa qofkaas laakiin qofka danti raacdaha ah ma ahan sida aan soo sheegnay qofka xaasidka ama danaystaha ah ee dadka kale dantooda aan ka shaqeynin qofka danti raacde waa qof yaqaano ama taageersan ama ka shaqeeyo ama ku faraxsan qofka kale ama dadka kale oo walaalihiisa ama garbihiisa jooga ama asxaabtiisa ama familkiisa ama waxay rabaan ha ahaadeen horumarkooda ku faraxsan wuxuu jecel yahay in asagoo dantiisa ka shaqeeyo qofkaas kale oo dantiisa ka shaqeeyo qof kasta oo dantiisa ka shaqeeyo hadduu jaanis u helo oo dadka kale jaanisku dantooda ka shaqeeyo caawiyo maxaa la dhahay caawinaad uu ka dhiibto qofkaasi waa qofka horumarka gaaray dadka asxaabta waxaad arkaysaa dad badan oo isku leefal ahaa markii ay cabaar soo jiraan leefalka oo adiga maxaa la dhahay lasoo weynaado meel la xalmarayo dad waxaa arkaysaa horumar gaaray dadna meeshooda way kasii hooseeyaanba dhulkay ku dhacayaan ama meeshoodii taagan yihiin adduunyada dadka waxaa la dhihi jiray way u kala heelisa ha way u kala heelisa keliya iyadoo ahayn haddana dadaalkaada ku xiran tahay marka maxaa keenay in qof oo dhulka oo hoos ugu dhacay qof positionkii daraad oo taagan yahay qofna oo horumar la taaban karo oo sameeyay waxaa keenayo wax kala maahan
waa danti yaqaanin waxaa rabaa dantaada inaad taqaanid meesha ay ku jirto inaad garanaysid hawsha adigu aad leedahay iyo danta aad leedahay waa inaad wax kasta marka hore ka hormarisid taada markaad meel soo saartid oo ka soo shaqaysid oo dantaada aad meel soo saaratay dadka kale toodan usoo jeeso markaas ayaa danti raace lagu dhihi karaa marka inaad hawshaada iyo dantaada aad ka shaqayso oo maxaa lahay midaada ay priority-ga koowaad aad siiso mar kasta isku day muhiimada koowaad dantaada sii talabaad dadka kala sii si u kala horeyso aakhiriya adduunka marka waxaa weeye soomaalidu waxay tiraahdaa qofka tiisa daryeelo ayaa tu kalena ku daro erey qaaliyo maamaha qaaliyo waa soomaalidu leedahay soomaalidu waa wada xigmad maxaa lahaa xigmadahooduna run ay ku salaysan yihiin intooda waxaa la soomaali been way sheegtaa laakiin been ma ku maamaahdo marka waxa waaye qofka dantiisa qofka tiisa daryeelo ayaa tu kalena ku daro ma fahamta adiga haddii marka qofka uu dantiisa ka soo baxo oo tiisi daryeelo oo tiisi meel soo saaro wuxuu anfacaa naftiisa wuxuu anfacaa dadka kale qaraabadiisa familkiisa ehelkiisa dadka dhan wada anfacaa qofkaas marka wuxuu noqonayaa qof useful wax la yidhahdo dadka kale wuxuu noqonayaa qof muhiim ah isaga dhan baa cad laga tuuro lahayn fahamta adiga cad laga tuuro meelaha aan lahayn qof aan lahayn dadka kale anfaca isagaa is anfacayo laakiin qofaaba dantiisa markuusa aqoonin dhulkuu ku dhaca marka dhibaato ayuu keenaaba dadkii kale oo culeys ku keenaa dadkii kale oo asaga oo maxaa lahay ama qarabiisa ama familkiisa ha ahaadeen ayuuba culeys ku keenaaba in isagii lasoo qaado ama isagiiba maanta oo dhan la taageero la saboot garaynayo isagii noloshiisa dabaraadiisa wixiisa dhan dadkii kale mashquul ku noqonaya hadduusan dad lahayna noloshiisa dhulkay tegaysaa wuxuu noqonayaa street people waxa la dadka waxaa lahayay jidadka jokolayaasha ku noqon jokolaa meesha hadda ku naqaano ama maxaa lahay dadka aan haysanin guryaha homelesska ah dadka halkaasu ku dhacaa marka intaa heerkaas qof gacantiisa ku jiro marka heerkaas intaada gaarin waa inaad nolosh marka horeba dantaada aad taqaanid waxa macnaha kaloo meesha ku jira waxaa waaye inaad dantaada inta ka wada tagto qof kale ama dad kale dantooda keligeed ka shaqaysa taas waa doqonnimo aan meel loo dhaafanayo tii ugu darneed inaad dantaada keliya ku ekaato dadka kale toodana aad meel iska dhigtana ayaduna waa midkaan soo sheegno waa danaystanimo waxa u dhexeeya waxa waaye inaad dadka taada aad marka hore priority-ga siisid ka bacdina aad ta dadka ku dartid marka waxaa noqonaysaa qof mujtamacii dhammaa wada anfacay waxtarna u leh muhiim ah nafsadaadana waxtar u leh asagii dhamma qof aan maxaa lahay sidan sheegay meel laga tuuro aan lahayn cad la tuuraba aan lahayn noqonaysaa marka waxaan rabnaa si bulsho dadku dad wada fiican u noqdaan inaan dantiina ka wada shaqaysiin qof walba hadduu tiisa taageero yaa qof kale u baahan lahaa waa maya qof walba tiisa bis hadduu meel soo saaro waxay noqon lahayd marka dambe in laiskugu yimaado kanoo tiisii ka soo baxay oo noloshiisii soo dhistay kan kaloo noloshiisii soo dhistay heer sare la iskugu imaana marka waxaa la iskugu imaanaa meel dhexe oo heer sare ah waxaa noqon marka halkaa markii la isku yimaado isku meel gaariga in laga raaco saas baaba la tegaba nolosha qeybaheeda sare waa sii aada laakiin haddii adi taadaa ka dhacdo ka kale tiisi ka soo dhaco meeshaan dhexa oo qashankaa isku imaanaysiin haraati aa bilaabanaa ilaa wax oo isku haya ma lehe laba dhulka kusoo wada dhacda noqonaysa marka inaad noloshiina qof walba oo dantiisa marka koowaad uu ka shaqeeyo ayaan aad iyo aad inkuu tartiisgelinaa oo inkugu dhiirigelinaa oo maxaa la dhahayay waxay noqon kartaa markii aad noloshaada aad ka shaqaynaysid fasi of hadday shaqo tahay oo shaqaynaysid inaad shaqadaada daacad u noqotid timekeeda tagtid adiga ninkaan waxba iskaga bedelin si nadiif ah oo ninkaan yiraahdo aan caajis iyo laalaab ku jira u shaqaysid marka danayste maxaa lahaa danaystana ha noqon qof dantiisa inta kasoo tago dan kaloo islaamid ka shaqeeyana ha noqonin waxaan kula dardaarmi lahay markii maxaa lahaay wixii markaad noloshaada ka shaqayso oo for example hadda waxaan ka sheekeynayay shaqadaada marka shaqada daacad u noqotay oo dantaada si nadiif ugu shaqaysid
wixii ku soo gala marka inaad budget u samaysatid oo adiga noloshaada aad budget fiican u samaysid oo wixii caaw ku soo galo maanta aad isticmaalin kari kulligood oo aad kala habaysid saving aad yeelatid wax save garaysatid adduunka nolosha ay noqoto midda maanta bes inaad ku fikirin oo berri iyo berri dambe iyo sanadaha iyo waxa soo socdo aad samaysatid adiga markaa nidaam noocaas samaysid waxaad noqonaysaa qof dhisan isku filnaad oo haa dhisan oo noloshiisa taageerayo oo berri ka maalin u baxsanaya laakiin dantii marka aad maanta wixii aad hesho ama nolosha aad samaysto ama shaqada ama lacag iyo wixii aad hesho aad maanta inta la soo ordaado ruuxaada dad kale aad farqa ugu shubtid ama ay noqoto waxaadu wax dadka ka dhaxeeya oo kulliba wixii aad markaas ay hesho dadka degeentid la wada qaybsaas xataa la wada burbursado maalinka dambe dhulka ku soo dhacaysa wax haba yaraatee faa'iida oo ku soo kordhayana malahan waxa fiican marka inaad maxaan dhahay dadka la socotid laakiin caqli kula socotid marka taas waa dantii raacnimo noloshaada taageerideeda iyo wanaageeda iyo horumarkeeda waxay ku xiran tahay in aad dantaada taqaanid anu intaas ayaan dhihi lahaa waana mahadsantiin asxaabteena insha allah wixii kalena waa idiin soo gudbi doonaa barnaamijka wixii talay tusaale insha allah halkaan ugu soo qoraysiin هذا channel كوحسبته سو دوانيسا فاميلك وحال ضايا على سيد فاميلي channel كان يجلس يعطينا channel كفرحية فلوج هذا كوحسبته سبسكرايب لايك and share إن شاء الله we'll be back with more videos وعلي سلامنا ومع سنتين أصحابنا